mar walba adiga qamaarka ayaad ciyaartaa marar badan been waad ii sheegtay waana ii qiyaantay qaalib mase la socotaa qofka adiga nolosheena aad ku soo lifaaqdo waa qofka ugu xun dunida waxaan islaam mar walba garba ayuu insiinaya wuuna idiin soo laabanayaa balse adiga ma soo laabatay aniga waan ku aaminay mar walbana waxaan islaa dib ayuu u soo laabanayaa qaalib laakiin aniga waan kugu daalay beentaada waan ku daalay ayaan ku dhahay markaad ilaahdo waan ku furay waxaad iigu xaga juglaysa gabadheeda inaana martaba arki doonin tiina waad ka dhawaysay aaba gabadhayda haawey allen waxaana dhan waxaad u samaysay aad ii dhaawacda soo maahan ii sheeg siinab sidaa u malaysa waxba uma jiraan anigaa diyaar waa inaan lacagta dhiibo maxaad bixinaysaa ii sheeg runtaa miya ii sheeg sidee u bixinaysaa maxaadse bixin rabtaa kelinimadan maanta adiga indhahaaga aan ka dareemaayo aniga ayaa hore ugu geystay qaadir waxaan islahaa wuu kaa tegaaya waxaana ku fikiraya gabadhayda hal maalin aabbalaan inaysan ku noolin sidaas darteed ayaan aniga wax walba u sameeyey laakiin adiga waxaan islaa mar walba garabkiina ayuu taagnaanayaa waxaan ka baqaaya inaad maalin naga fogaato waadna naga fogaatay aniga mar walba waxaan ka baqaaya gabadhayda sidoo kale aabbalaan inay korto laakiin maanta kadib ma baqaayo qabso orad ninkaasu tag kadibna gabadhayda dib iigu soo celi dhaqaaq maxaad sugaysaa zaynab adiga isdeji aniga ninkaas aqoon ayaan u leeyahay balse kaadir ninkaas aqoon uma laha fiili aniga aqaan saaxiibana waan ahay weliba si fiican ayaan u aqaanaa saaxiib mid ogow wax walba annaga ku farna haddii aad samayso gabadhaada waad helaysaa laakiin taas beddelkiisa haddii aad samayso micnaha waxay noqonaysaa gabadhaada inaad waynayso warkayga waad fahanti soo maa maxaad rabtaa marka inaan sameeyo maanta shax ayaan idiin wada shaxdaas ayaan wada ciyaaraynaa si aan u wada dhannahay mii fahanteen midkeen haddii uu qalad sameeyo waxaad ogaataa shaxdaas meeshaas inay ku soo afjarmayso qof noloshiisana ay meeshaas ku ba'ayso khiyaarta aad ka sheekaynayso waa nocmo way fudud tahay anigaana kuu sheegaya wax walba sida loo samaynayo iyo sida loo ciyaaro shaxdaas ugu dambayn ninkii khaalib la dhahayay wuu yimid wax walbana okay ayay noqonayaan dabagal muu ku samaysay khaalib maya maxaa dhaca inuu ku khiyaano ma ka cabsanaysid aniga ninkaas ma i khiyaani karo waayey ma aaminsan tahay aniga khaalib ma aaminsani laakiin zaynab ayaan ku kalsoonahay waxay ii sheegtay inay dhankayga tahay oy aniga ila jirto aniga waxaan go'aan ku gaaray kaadir hadalkiisa inaan dhegaysano hay saaxiib dhankaaga ka waranaade hadday ciyaartan suurageli weyse maxaan samaynaa ii sheeg bal shakiga haddii aad naga ilaaliso shaxdeena sideeda ayay u soconaysaa laakiin laablaab haddii aad keento shaxdeena way ku kala goynaysaa mid naga badbaadaya ma lahan kan marlee gacanta halay soo geliyo anaa afjari lahay ilkahana waa ka daadin lahaa maskaxdaa iska waali adigoon maya dhihin miini ma qabso diyaara on maqsuud ayaad iga dhigtay mahadsanidaan ku dhihi lahaa haddana waa inaan ismaaraynaa zaynab teleefonkan ayaad iga qabanaysaa zaynab waadna igala soo hadlaysaa midaan kan ahayn igalama xiriiri karsid adigana shaxdeena shaki ha gelin hadday dhacdo shaxdeena waxay noqonaysaa mid lagu shahiido wax qaldan ma samaynaa wax dhifarta oo keliya ayaan samaynayaa okay aniga hadda zaynab ayaan wadaya gurigeedan keenaa 20 daqiiqo kadibna adigaa soo baxay taxi aadna soo raacaysaa meesha aan isku ogeyn ayaan tagaysaa warkayga waad fahanti soomaan iyadoon waxba dhicin okay soo soco marka walaal bambada mar labaad ayay qaraxday aniga markii hore waxaan islahaa arrinta si degan u xali laakiinse ninkaas ayaa ay garaaca aniga yacquub gabadha iska sii daa aniga ayaa kula jooga weliba waxaan kaa rabaa saaxiibtinimadeena hore inaad qiimaysid gabadha iska sii daa waxaad doonta aniga waad igu samayn kartaa yacquub
cabdikariin aslam aniga markaan kaftan igama taagna tilaabna ha ii soo qaadin dib iga deg haddii kale gabadhan waan dilayaa ogow wax xarakaadaas ku sameen kaale intaan idinka maqnaa dad noocee ayaad noqoteen idinka yacquub laba wajiilanimadan kaale adiga ma kuu qarsan idiin sheeg la wajiile war aniga nolosheeda sidaan ay ahaan jirta weligeed waxba kama bedelin laakiin adig ayaa indhoolo ahaa oo aniga igu kalsoonaaday yacquub gabadha bistooladda ha ku taagin aniga inta igu soo aadisid oo niriga iska dhigtid sujuudda aniga xabadda iga dhufo waxba gabadha xabadda ha ku taagin yacquub aniga ayaa nin raga anaa ka hor taagan igu dhufo xabadda habeenkii shilka waxa aan sameeyey cabdikariin wax ka daran ayaan samaynayaa sheekada haddaan fahmay habeenkaas ayaaba sheeko qabyo ku wees soomaan haddana waxaa rabtaa sheekaas inaad dhammaystirto haddaad nintaa xabadda aniga ugu dhufo waayahay ma dhammaystir maxaad la taagan tahay iniga siya luriya xabadda haddii aan kugu dhufto maxaad u malaysaa inaad meeshaan sii taagnaanaysid war madaxa ayaa ku qarxaya ayaan ku dhahay ma noolaanaysid waa dhimanaysa yacquub sidan ha samayn maxay dhahda kuma fahmine waxaan ku dhahay sidaan ha samayn waxaan rabaa sheeko macaan badan inaan kaaga sheekeeyo sheekadaasoo ku saabsan cabdikariin iyo miral yacquub dib iga deg ayaan ku dhahay shibiga dheh ha ii soo dhowaanin waryaa hagaag hadda ayaan sheekada gudagelayaa alloora ninkan xabaddan waa isjeclaayeen waa isla socon jiray xiriir ayaa ka dhexeeyey ninkan xabsiga intaan la gelin ka hor qoftan aniga waa ii baaqi jirtay mar walba waxay ii samayn jirtay baaq gooni u ah ayada anigana waan fahmi waayey xabsi ayuu gal maalin maalmaha ka mid ah 5 sano ayaa lagu xukumay inta uu xabsiga ku maqnaay anigii qoftaanne waan isfahnay xiriir fiican ayaan samaysanay ileen qoftan aniga waa iga heshay waxayna u baahnayd qof garabkeeda istaago oo xiriir fiican la sameeya maadaamuu ninkan ka dheeraada ayada oo xabsiga uu ku jiray intaas wixii ka dambeeyey aniga qoftaa waxaa noqon 2 qof oo isfahmay oo xiriir ka dhexeeya aamus iga siiso haddii aad maanta dili weysa ballan waxaan ku qaaday inaan kow kaa siiyo aniga adiga waxaan ka leelna ayaan leenahay maxaad la taagan tahay igu dhifo xabadda oo dhammaystir haddii kale adaan ku dilaya shibne war doqoyo aniga waqtigayga ayaan ka faa'iidaystay adigana waqtigaaga sugo yacquub waa ku baryaa gabadhan iska sii daa waxaad doonta aniga igu samee qoftan waa qof dumar dumarkana waxyeelo looma geysto ee gabadha iska fasax waxaad doonta aniga igu samee anaa diyaar kuulaa war aniga fikir fiican ayaa ku haya iga dhegayso adiga iyo gabadhan qofkii dhimanaya iyo qofkii noolaanaya waxaa go'aanka gaarayso meeral oo keliya meeral sidee u aragtaa arrinkan kaale adiga yacquub markaan waa licas ayaad keentay waryaa kaale maxaad samaynaysaa adiga bini aadan miyaadan ahayn meeral go'aanka adiga ayaa lagaga baahaya cabdikariin miyaan dilaa ama gacalisadiisa ayaan dilaa oo garabkayga taagan ayada ayaan u fududayaa dhimashada haye saaxib dimiir wacad waxaan ku maray inaan maalin maalmaha ka mida ciqaab idin marsiiyo kuma dhaafaa yacquub zaynab marka hore murugada waa inaad iska daysaa oo isfurfurtaa mar walba adiga ayaa farxad siin jiray maanta maxaad ii weydiinaysaa marka wax walba waad xasuustaa فيلمكani waxaa loo tarjumay muqdisho kaybal hal mid qura ayaan ahayn xiriirkeenu wuu qurux badnaa waa runtaa wuxuu ahaa waqti aad u qurux badan beentaada maahan waqti qurux badan waynu soo qaadanay laakiin waxaan rabaa waqtiyadaas quruxda badnaa waxaan ku soo xasuusanay inaan sameeyo adigana taas ii ogolow مسلسلكani wuxuu gaar u yahay muqdisho kaybal TV
de tek sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Gurbette sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. waxyaabo badan ayaan rabay inaan adiga kaala hadlo. waan ku dhegaysanayay soo daa haddaysan maanta dhibaato nagu dhici lahayn wax walba waynoo haagi lahayn waxaan rabaa aalan inaad la kulantid. waa gabar yaroo aad u naxariis badan. kalgaceylkeeda iyo naxariista ka muuqato markaad aragtana waxaa laga yaabaa dhaawacyo badan oo ku soo gaar inay kaa bogsadaan. gabadhaadan la kulmi doonaa weliba si wada jir ayaan ula kulmi doonaa adigana laabta waad gelin doontaa farxaddaada horena dib ayaad u helaysaa taas anigaa ku dhahay kaa ballan qaade walwalka iska dhaaf insha allah. ma jeceshahay boonbalaha maxaa kugu dhacay ma jeclid miyaa boonbalahan haddii aan ku dhawo jeclaa meesha miyaga daynaysaane arrinta maanta dhexaysa ayay qusaysaa middaas hooyada iyo aabbaha waxaan u dirsada hadday ii sameeyaan adiga waad iska baxaysaa hadday ii samayn waayaan waad joogaysaa waadna ku qasban tahay halkaanna kama tegaysid labadooda mid ka mid waa inuu dhintaa. yah gabadha waa inaa u dhammaysaa. meeral sidee kaa noqotayna waa inaan hadda howsheeda bilaabaa yacquub ha samaynin yacquub sidaas ha samaynin aniga ayaa saaxiibka qoftan wax dembiya ma aysan gelin saaxiibtinimadeena qiime aniga idil haddaad doontay laakiin gabadhan wax dembiya maysan gelin faraha ka qaad yacquub iska daa qoftan waa qof dumara yaanan isku xumaanin labadeenna yacquub ka daa sidaa kuuma habboona yacquub faraha ka qaad hal mid maxaa waay middaas hadda waxaad ii sheegtaa sababtay halkan u imaaday qoftan yacquub qoftan dahabkii laga dhacay markii gurigeeda la jabsaday ayay daba taagan tahay wax kale oo ay rabto haba yaraatee ma jirto intaasay raadinaysay wax kale amay og tahay wax kale ay ogtahay haba yaraatee ma jiraan waa gabar masaakiina xaaladdanna adiga kuma qusayso marka gacan ku dhiiglaha noqonin qofta waa qof dumara nin weyn iska dhig faraha ka qaad maye qoftan inaa fasax lagama yaabo sababtoo ah gacalisadeeda ayaa waxay dhahday qoftan hala dilo amarkeedana amar sooma dul saari karo waxaan ku qasbanahay inaan dilo yacquub qoftan adiga wax dembiya kaama aysan gelin qoftan waa abukaatana looma dhowaado faraha inaad ka qaadda ayaa danta kugu jirta maxay tahay sababta aad bistooladda ugu hayso aniga ayaa ku hortaagan waad u baahanta aniga weydii waa ku baryaa ka daa yacquub gabadha sidan ka dhaaf cajiib ninka adigooba kaa walwal weynaa ku heesaya waxaad sheegtaa dardaaranka ugu dambeeya oo keliya sababtoo waad bixi kartaa mar dhow hadda ayaan bilaabaynaa diyaar waa tahan filaha
يا فيل ورسيدة. قبل بالصورة كنت أوريا هدي كم دافع كم سيدنا يا يعقوب جوج أيام كنا. كم دينا يا يعقوب joojiye dagaalka dhaqso ku dhufa xabadda سيدة وريا يقفوا kariim kariim يعقوب ما كمش ملل الصبح ملل صدق صبح صعو يا قدا maxaan sameeyaa kariim قال قاري ضرب الكاريك كحي محتوي صادقصو maxaan sameeyaa hadda intees wax ka bilaaba ana aqaan ambalaastaa wacaa hadda وكبريا أمبلاس تاوعن اسكتا فراك قاد maya waa inaan wacaa dhiiggaaga ayaa baxaya cabdikariim أمبلاس وعن أمبلاس تدد وعد يا بوليس كويس صار راعي كده cabdikariim maxaa ku hadlaysaa hadda ambalaasta wicin waa dhimanaysaa adiga waxaa isku dayay inay isocodsiisid anigana waa isdhiba tartiib ayaan u soconaya maxaa ku hadlaysaa kariim waa dhimanaysaa adiga marka ugu horreeya horta istaaji aniga waa aragtay inaan dhig baxay yacquub maxaad samaynaysaa maxaad suu dishay cabdikariim adiga maxaa u dhahday gabadha dil ii sheeg midaasa ku weydiinaya waxaa dan kaleedaa soo maha ilaa hadda cabdikariin maskaxdaada ayuu ku jiraa weli maadan iloobin gaariga jooji ma jooji karaa ku dhaa gaariga waxaan ku dhaha gaariga jooji boolis ayaan daba taagan ma jooji karo bareeg khabuuryaa gaariga ka deg maxaad ku hadlaysaa ka deg ayaan ku dhaha gaariga ka soo deg gaariga ka soo deg gaariga isiida isiida war isiida ayaan ku dhahay war gaariga ka soo deg maxaad sugaysaa maad baxdid cabdikariin soo ma rabin ilaa uu ka dhimanaya inaad gacanta ka qabsato ila hadal haddii aan raba inaan isaga la joogo kama soo tageen adigana kuma soo raaceen ayaan ku dhahay waxaad ii sheegtaa maxaad u rabtay gabadha jirim la yidhahda in la dilo oo cabdikariin noolada aad u doonaysay ii sheeg midaasaan ku weydiinaya ii sheeg ma hadashid maxaad u aamusan tahay hadal maxaad sugeen sababtoo aniga waxaan raba sodohdeed buu annaka annahay inay ogaato dadkaas dhaawacay inoo geysteen waxaan raba dhaawacay inoo geysteen mid lamid inaan u geystin haddii aad gabadhaas dili lahaydna waxay ogaanayaan wax walba annaga anaa wayna ka shallaayi lahaayeen war aniga adiga ayaan kula jiraa dadkaas kalena waxba igama gelin xitaa lacag uma baahnin adigaan ku jeclahay waana rabaa inaan kula joogo waad waalanta adiga waxaan aniga ilaa hadda ku wareersan adiga jini miyaa tahay mase insi ayaa tahay taas ayaan isweydiinaya mar walba lagama yaabo gabar kale inaad jeclaatid sababtoo ah anigeeda jeceshahay xitaa lagama yaabo inaad gabar kale fiirisid soo sax maa hadalkayga adiga markan way dhex gashay dabeecadiygo dhan ayaad fahantay dimiir maxaad sugaysaa gaariga kaxeey dhaqso gaariga kaxeey waaya sax
كريم ترتيب وسعو jimir adiga iska bax aniga faraha iga qaado iska كريم إنا كاتك لغما يابو وان كل جوغا maya aniga tabartayga dhammaatay intaan ka badan ma socon karo bas ماي كريم أمبلاس ساو ييرا maya cidna ha u yeerin orod iska bax adiga xaafadaadii aad سيدا Aniga ma كاغا socon karo. بتيجي كرو intaan jeel gelin lahaa aniga waxaa lii qaatay inaan iska dhinto dhimasha iyadoon intaan jeel aadi lahaa كريم واكو بريا عندها كلفر عندها اسكو حرين أديك أنا قدرت أسوي مصولابن وكان أنا جوا نولاي ما دام أديك مركا غوري أدي بتبادس أنا ينوان قصبنا ينك بتبادي jimir adiga qalbi miyaad leedahayna قلبي ما حول لها واي سو بلا آدم مي كريم واكو بريا هرت مركا غوري أنكو بتباديو sideed ku awoodday gabadheeda nin mindi geliya mise dhaawac u geystay inaad abukaato u noqoto adiga ii sheeg aniga waxaan isku dayaa wixii fiican inaan sameeyo oo keliya war wixii fiican iyo wixii xun aniga iima sheegaysid wax kasta waan ka ogaa waxaasoo dhan waxaa u samaynaysa oga fidna adiga aa wadato waay gabadheedana arrinkaas adiga ayaa garab ku siiyey isku day inay fahanto gabadhaad adiga dhashay ayaa rabtay in ninkan xabsiga laga soo daayay anigana waan u sameeyey oo keliya إيجي قبل تليفونك aniga sidayda bannaanba bataatan ma doonayo xafiiskayga in laygu yimaado afaaraha veelina in la ii waraysto intaasoo keliya ayaan ka cararaya aniga mii fahanta hadalkayga mase ma fahmin ee waxbaa ku dhiman ii sheeg laga yaabee hay wixii ku dhiman ii sheeg marka master saliim adiga mala socotaa ninka booliiska ahaa ee shalay noo imaaday inuu daba taagnaay tuuggii weynaa ee vaali kiiskiisa waad nala socotaa vaali inuu yahay qofkii afduubta gabadha yar haddana kiiskeeda la daba war taagay adiga fiiri dhigeyso xuduudkaaga ayaa soo gudbaysaa waxaasoo dhan aniga ma kaayeelaya kiiska faali iyo gabadheedana wax iska qusaya habee haratee ma jirto mana doonayo aniga gabadheeda arrinkan in lagu soo leefaaqo ninka aad sheegaysana waa inaad adiga raadisaa oo weliba xabsiga aad ku celisaa hadalkayga waa inaad si fiican u dhegaysataa okay waan ku maqlaa jireen دمير حقي جوكتاني xafiiska ayaan joogaa وكو باهنا مي ما كرتا دمير dabcan أن أدرس كان أنا كوسو دراي okay أدر داود معبتنا أدي واجرنتا ماينو waa xanuunsanahay xanuunkaygana wuxuu iga badan yahay dhankan weli أوكي هدي إحساس داوة هدي داوة بحنوكو كوكسي زيادة malaygan hadduu raashin cuni soo noqonaa bravo waad aragtay anigana midkan ayaa quudintayda ah haddii aan asiga cunin waa xanuunsanaa kadibna waan dhimanayaa halo waan ku maqlaa soo hadal wax walba okay soo maa haa wax walba waa okay ninkii addal ahaa iga waran xaguu joogaa ninkaas ma aqaano sida xaaskiisa dhegdhegeeda u hela asagoo dhan wuu wareersan yahay hadday sidaas tahay aniga lacagtayda ayaan ka soo qaadanayaa kadib wixii dhici doona aniga ma aqaano kolley way kulmayaan dadkaas ha ka cabsanin wax walba aniga ayaa xalinaya okay maxaa ka wada adiga zaa'idkan adigu riixaysaa كريم هدان سيدان سمين ديقاق ميستاقايو haddii sidan adiga adii riix digbax ayaan u dhimanaya aniga أوكي كريم ازدجي وحير لي وقف أنا ما أنا نبت بادينايو iyo adiga wactoo kuu imaanoo garab ku siinayo دمير أيان وعي dhimalan abukaatiga cusba ayaad igu yeertay soomaan ha yimaado waa caadi ninkaas waa saaxiibkay garabuu keliya una siinaa inuu qof kale u sheegana arrintaa lagama yaabo
كريم وين اديك كاحرة واحد ازدجي يا وإماد دميرة إماد jariim halkan maxaa ka dhacay adiga ma wanaagsan tahay دمير wax ii sheeg wax walba gadaalan kaaga sheega ninkan waan arkaa laakiin marka hore su-aasheeda iga jawaab ninkan maxaa ku dhacay ninkan waa inaan badbaadin haddii kala dhiig baxa u dhimanaa dimiir adiga dhibaatada kaaga imaan karta mala socotaa nakeenaan ku dhahay kaama yeelin soo bax war sida aniga kuma raacay ninkan cabdikariin aniga darteed xaaladaan ugu jiraa inaan ka tagana lagama yaabo adiga garmaysiinaysaa haa mise maya marka hore waxaan islahaa dimiir waa nin fiican garab uu ku siinaa laakiin nin fiican ma tiid kaala garab isii halo inuu kula hadluu rabaa halo halo lacagteeda ma ii wadaa waan wadaa okay wax fiican ayaad samaysay waxaan rabaa inaan ku sheego inta dhiman haddii hawsha sidii loogu talagalay aa u qabato qof walba sida jeceshaan sameynaa beelaa tahay waxaad ugu tegaysaa taleefanka guriga waxaadna aadaysaa boosteejada basaska laga raaco kadib meeshaas nin ayaa kugu sugaayo ninkaas ayaa warbixinta ku siinaayo haalib waan ku maqlaa haalib si fiican ayaad ii taqaanaa haddii aad isku daydid in aad wax khaldan samaysid ama boolis uu ku soo raaco gabadhaada ayaan dilayaa halo ma ii maqashaa boolis yuu ku soo raacin lacagteeda ii keen gabadhaada iga wado wax walbana sidaas ayay ku dhammaanayaan waxba ha kuwelwelin arrintan boolis ma soo galay aniga keligeyga ayaa ku imaanaya hadday sidaas tahay wax dhib ee ma dhici doono ma ogaan karaa meeshaan ninkan geenayno dimiir sakarakooyin taas macquul maahan ee meel kale sheeg maxaa dhacday meel kale ma haysaa meeshaasaan kuu sheegay waxaa laga yaabaa dhakhtar fiican inaan ka helno waan la socdaa waana saxan tahay waan ku cafiyey ma ii maqashaa waxaan ku dhahay kariim waan ku cafiyey waa ku barya hadalkayga maqal waxaan rabaa inaan gabadheen dib noogu soo celiyo wax walba igu qaadato gabadheen dib ayaan u soo celinayaa is ilaali hana iloobin gabadheen hooyo keliya inaysan u baahnayn aabbana ay u baahan tahay haddii aan aabbo wanaagsan noqon lahaa waxaanoo dhan maysan dhaceen adigana waad i jeclaan lahayd kaatir qaalib hada ayuu guriga ka soo baxaa haa waan u jeedaa kaatir zaynab waad la socotaa ciyaartan annagaa bilaabanay guusheedana annaga oo keliya ayaa iskale qof wax ku dhacayaan ma laha walwalin waayahay isdeji marka soo gal wiilkayga adig maa ii yeeray haa anigaa ku yeeray wax khaldan ma jiraan maya maya wax khaldan sidee ku samaynaysaa wiilkayga dadkoo dhan adigayba ku jecel yihiine okay waa mahadsan tahay boos laakiin wax liigu jeclaada ma aanan samaynin wada shaqaynta vaali saa u aragtaa beella runtii ninkaas khatar waay ha okay beella mid ayaan rabaa inaan kuu sheego waxaana la soo gaarsiiyey inuu jiro shakhsi annaga nala shaqeeyo qolyaha daroogada ka ganacsata in uu la shaqeeyo arrinkaas ayaana soo gaaray qofkaasi ay ka shakiyeen aniga laa ilaahay igama dhigo boos sidee ku noqonaysaa adiga shakhsigaas waxaad tahay qofka keliya ee nala shaqeeyo ugu wanaagsan meeshaan waxaadna tahay nin ku soo koray agoonnimo agoonnimadaas ayaadna ku faa'iidaysatay agoonnimadaas maanta aniga faa'iidayna waxaana rajaynayaa shakhsigaas
inaad adiga gacanta ku soo qabato waana mid aan kaa filaayo taliya aniga maya aniga shakhsigaas waxaan rabaa inaad gacanta ku soo dhigto sababtoo shakhsigaas waa shakhsiga keliya sharafteenna iyo qiimaheennaba ku dheelaayo waxaana rabaa inaan weyddiiyo sababta uu xumaatadan u samaynayo okay waan ku fahmay qof aad ka shakisan tahay miyaa jiro aye meelaan maxaa ka eegaysaaniyo xalayto markii aan jiifanayay ayaa arrin maskaxdayda ku soo dhacday arrinkaas ilaa iyo hadda madaxayga ayay ka guuxaysaa marka waxaan rabaa arrinkaas inaan ribood ku diyaariyo maya taliya haddii aan ogaan lahaa waa horaan kuu sheegi lahaa soo maa waayahay orodtaad shaqadaada qabso waa inaan baxaa furayaashayda adig maa qaatay haa aniga qaatay anigoo i weydiin see u qaadat gaarigaaga dhexdiisa ayaan teleefon ugu tegay marka adiga maxaad u xanaaqaysaa hadda kadib adoon i weydiin ha qaadan waad igu og tahay qaadanayo baashaan iga fiiri taliya qofna ma aanan tusin adigoo keliya ayaan rabaa inaan ku tuso marka ila hubi maxaa ii keentani waa ku baryaa taliya su'aal ha iga weydiin arrinkan adiga baar soo xaqiiji wax walbana ogow kadib adiga wax walba fahmi doono adoon su'aal iga weydiin jawaabtan waa helaysaa waaya su'aal makaa weydiinahay okay gaarigaaga ma qaadan karaa taliya sabab arrin ayaan rabaa inaan ku soo dhammayno waaya ha qabso laakiin gaarigayga ciw ii soo celi waad igu og tahay taliya hadda ayuu yimid ninka dabcan waan imid aniga wakhtigii loogu talagal ayaan keenay ballantana waan ilaaliyey ninka alaabta oo keen wax dhibaataana ma jirto
talow haddaan keeni lahayn maxaa dhici lahaa inaa ogaataa rabtaa miya waan jeclaan lahaa inaan yalla makeen ninka annaga noo shaqeeya oo na khiyaano wixii lagu sameylaa inaad aratarataamo waad iska sii daysaa soo maa maya nolol kuma sii deyno dadka badeecada dayacay familkooda waa kuwaan intay joogaan mudankoodana meeshan ayaa lagu marsiinaa hadda adiga wax dhibaataa ma samayn familkaagana way naga ammaan helayaan haddii laakiinse badeecadeenna aad dayacdid 12 sacan aad la maqnaato familkaaga ayaa soo afduubanaynaa kow ayaana ka siinaynaa maya aniga familkeyga sidaas in loo galo ma rabin wax walbood ii dirtaan wakhtigiisa ayaan keenayaa haddiiba ee saas taa waa naga ammaan helaysaa taliya maxaa kaa qaldan oo kuugu dhacay maxaad halkan iigu yeertay oo jiro way fiicnaan lahayd marka hore ani adiga inaan isfahanno adiga baryahan hadalkaada waa fahmi la'ah maya horta fursaddiisii aan wax walba kuugu sharaxo markaas ayaan wax walba ku fahamsiin karaa adigana sidaan aan u hadlin okay 2 daqiiqo oo keliya ayaan rabaa wax shaki miyaa jiro ii sheeg adigana maxaa waa aniga arrimahaaga sidaan ku soo galaa weli maysan dhicin qof aniga ila shaqeeyo inuu iga shakiyo caddaan ma haysaa haa sidaan kaaga shakiya adiga aniga ayaad ba iga khibrad saraysaaye waadna iga ilbaxsan tahay taas ma ogin maxaa ku hadlaysaa adiga ilbaxnimada aad sheegaysana maxay tahay wax walba waad u jeedaa wax adiga ogeenna ma dhaco aniga fiiri warkaa ii dulmarin haye maxaa ku qoslaysaa war adiga ku weydii maxaa ku qoslaysaa maxaa dhahay caadi aan qoslayaano waad iga saraysaa miya haa okay waa aamusaa hadalkaadaan dhegaysanaa wate ii sheeg waxaad ii sheegi lehed abtiga dhegeyso abti mala socoto aniga nolosha dhaawacyo fara badan ayaan ku soo maray dhaawacyadaas aan nolosha kala soo kulmina dad fara badan xitaa waan ku waayay sidaas ay tahayna horey ayaan u socday dib ma aanan u fiirin waxaan isku dayay nolosha inaan keligayga ku noqdo laakiin adiga igu soo biiri adigaana khibrad kaa helay kelinimadaasna aniga dhibaato weyn ayay ii keentay sidaasi ay tahay dareenkaygana meesha ayuu ku baaba'ay weliba dareenkayga keliya ma ahane xitaa waxaad baabi'isay kalsoonidii adiga xilkan lagugu dhiibtay anigana waddadaas ayaad i gelisay waxa aad ii horseedaysa aad ayaan ugu helay
aniga waxaan ku horsadaa haba yaraatee ma jirto veli laakiin waxaan ku hayaa saaxiibtinimadeena walaaltinimadeena inay meeshan ku baaba'ayso tan aan ogahay haddii aad ogaan lahayd xiriirkeen wuxuu isu bedeli lahaa cadaawad marka warkayga ma fahantaad warka ha ii laalaabina toos waxay igu sheeg toos inaan kugu sheega ma rabtaa haa hal walaal iga weyn ayaan lahaa mana rabo marka si fudud inaan kugu waayo warka waad calaanjinaysaa caddayntiisa sheeg warkayga sida xaanshada oo kale ayuu u cad yahay erey kalena inaan ku dhaho lagama yaabo malaayga ma jeceshahay naga dhaaf yaa qayb faali sheeko kalluumaysiyaa noo keentay iyo malaaye anigaa jecel anigaba waan jeclahay malaayga laakiin waxaan kaala yaabay maxaa ula jeedaa ifahamsii aniga sidaydaba malaayga waxaan jeclahay inaan xanaaneeyo oo aan barkad ku rido markaan yaraay aabbahay malaaygaan soo qabto badda ayuu ku celin jiray sababtoo ah baddan baaxada weynood arkaysid malaayaalka faraha badan ee ku dhex nool waxaad arkaysaa qaar wax bay cunaayaan qaar wax fudud intay cunaan ayay haddana isla markiiba dhimanayaan laakiin arrintaas arrin kaloo ka weyn ayaa jirto haddiiba si sahal gacanta lagugu dhigo oo isla markiina lagu qaban karo wixii doono ayaa lagaa samaysan karaa sida malaaygii oo kale inta la soo qabto ayaa la dubanaya misna la cunayaa haddaba aniga malaaygaas ma ihi ee kalluumaystihii ayaan ahay aniga cid wax igu samayn karta ma jirto ee aniga ayaa wax ku samayn kara dadka midkee noqonaysaa adiga hadda bal ii sheeg kalluunkii miyaad noqonaysaa mise kalluumaystihii ninkii la dilaaya miyaad noqonaysaa mise kii wax dili lahaa adiga maba loo baahno hadal kale inaad iga sugtid kaadiir waa ku maqlaa soo hadal tali hawshan bilaabi rabnaa bilow ilaahayna ha kuu fududeeyo okay adigana waxaan kaa rabaa inaadan arrinkan qof la wadaagin labadeena oo keliya inuu nagu ekaado waa i fahanteeno marxaba waa yahay ee adiga le imaaw okay waa yahay markaan hawsha dhammayn meeshan jooga anigaan kuu waa ii sheegtay ma iigu soo celcelinay okay mar le imaaw adiga waayahay soo dhaqsi barta ninkan xabadii waa aynu ka saarnay hadda xaaladiisu waa okay ninkan oo kale markuu dhaawaca soo gaaro waxaa loogu talagalay isbitaalka dowladda inaad geysaan idinkuna ma inaagin halis ayaa ka imaan karta marka amaynu baxar ku galnaa oo aad arrintan aad qarin weysaan hadhowna dhibaato adaga ay ii geysataan arrintaas ayaa aniga murugo igu haysay marka bal hal keena ditore waxbaa ka cabsanin arrintaa cid ogaanaysa okay waad mahadsantahay warqadan qaba daawooyinkan waa inaad u raadisaan sida ugu dhaqsiyaha badan haddii kale waa uu idinku dhiman karaa okay adigana aadaad u mahadsan tahay sidoo kale adinkuna waad mahadsantihiin waan idinka sii tegey muxuu ku dhahayne xaaladiisu waa okay laakiin joogista halkan halis ayaa ugu sugan dhib badanaa waxaanoo dhan in dartay u dhaceen macan badan waa ku baryaa adiga isdeji waxaadna ii sheegtaa waxa halkaas ka dhacay kariim wuxuu aaday yacquub si uu fiidiyowga ugu soo qaado laakiin yacquub wuxuu isku dayey inuu anigii dilo yuu yahay qofkii isku dayay inuu adiga ku dilo yacquub madax ayuu bistooladiiga saaray hadduu cabdikariim in la joogi lahay xilligan aniga waa dhimo lahay damiir wax walba aniga dartay ayay ku waxaas maaha wax dhici kara anigana igama daadegayaan
macantii dhegeyso wax fiideo la yidhaahda habeeraatee ma jiro wuu jiraa fiideo iyo aamin ma jiraan adigaa been laguu sheegaya haddii aad rabto inaad arrintan ka daba tagtana aniga maku soo faragelinayo ee garab ayaan kugu siinaya waana ballan aan adiga kaa qaadin adiga halkan igu sug anigana daawooyinka ayaan doonaya waad og tahay dhakhtarku daawooyinka waa muhiim ayuu okay okay hay daasanin waan kuu soo dhaqsanayaa maxaad ku qoslaysaa run ahaantii soo labashadaada ayaa aniga farxadiya farxaddaasoo aniga aanan horay u arkin weliba marba haddii aad adiga nooshahay intii la doono aniga xabsi ha liigu xidho wax iga qusay haba yaraatee ma jirto soo adiga iima noolid walaal meesha maxaa ka dhacay ii sheeg sideen ku ogaan karaa haddii aaba lii sheeginbo waayihii taliyaheen aaba ii sheeg bal waa baxay taliyaha gaashaanlaana uma jeedidu meeshaas ayuu murmarayaa xanaaq dartiis wax jirane ma aqaan aniga laasim fii shay aniga weligay kuma aanan fikirin sidaanoo kale ayaa dhacaysa ninka annaga gurigeenna xaday ayaan haddana gurigeenna keensannay ilaa uu ku caafimaadayo gurigeena ninkan jooga haddii uu caafimaado uu lugihiisa ku socdo maxaa dhici kara kaliya waxaan rabaa dimir inaan ogaado habeenkaas gurigeena wax ka dhacay iyo fiidiyowgii sababtuu ii dhaawacay wax walba ay ahaato maalin runta waan ogaan doona aniga waxaan rabaa sababta keenta balam inay dhiiggayga tirtirto iyo sababta ku kalifta katiir inuu hal su'aal maalin walba ii weydiiyo soo kulama aan ninkan booliska baalman inuu eedeynayo waa kuma cidda ku khasabtay inuu arrinkan dabagal dheeraad ku sameeyo adiga aabbaha macantu muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya maxaa sakin inuu aabbay dabagalo wuxuu ku soo eedeeyey aabbaha inuu vaali jacfar uu abuukaato u ahaa oo hadda maxaa dhihi rabtaa aabbaha ninka vaali jacfar la yidhaahda ayuu abuukaato u ahaa ninkan booliiskan wuxuu rabaa dembiyuusan lahayn inuu dusha ka saaro xitaa baalma khalad maysan gelin aabbahe miyaa loo yar u ahayna ninkii cunugta yarta afdubtay waan ka xumahay run ahaantii marxaladda jirta ayaaba taas ah wax fiideo la yidhaahdana ma jiro adigoo keliya ayaa qalad aaminsan macanto maxaad samaynaysaa halkeen u socotaa bal ii sheeg adiga isdeji dimiir waa ku baryaa iga leex aniga waxaan rabay oo dhan waa maqle halas xaan ii sameey kariim keligiisaa ka tegin yaa khajiriim
Allo. halo ninka mootada wato ee aad arkaysid boorsada ku wareeji asiga ayaana adrees ku siinaya waa inaad adreeskaas si toos u aadaa maxaa dhacay maalin waxaa dhacday in noola soo diray howlgal daroogo waxaana ila shaqaynayay nin saaxiibkay yuusuf la dhahayo oo aad u wanaagsanaa raggii ayaa xoogaa naga soo daaheen annagana meesha ayaan ku sugnay ninka mootada watay mootoolihii wuu baxay danihiisa ayuu raacday kii gaariga watayna gaariga ma uusan raacin asigoo lugaynaayo ayuu dhankan ka baxay kii mootoolahana dhanka kale ayuu ka baxay marka waxaan ku weydinaa adiga kee raaci lahayd labadooda aniga sheekada maxaan ka ogayaa khay midkeen raaca adila ii sheegna kay la raaci lahaa aniga ninka boorsada keenay ayaan raacay saaxiibkayga valley aniga sheekadaada leen wadaa gabadhaydi macaaneed hal su'aalan ku weydiinaa yaa tahay adiga ma ku fahmin hadalkaaga waxaa ku dhahay yaa tahay ilaa iyo hadda ani hadalkaaga furka iga dhacay kaalay ninkii dembiilaha fili miyaa loo yar u tahay maxaase kugu kalifay ninkaas dembiilaha inaad difaacdo badbaadiso ii jawaab okay gabadhaydi isdeji saas hadday tahay si deganaan ayaan wada hadlaynaa adig isdeji oo keliya halkaan fadhiista say kaalmo okay maxaa ka wada hadalnaa aabbo ninkaas waad ogtaa gabar yar ayuu soo afduubtay saynibna xaaladday maraysa waad la socotaa aabba maxaa kuu kalifi ii sheeg aniga hadda saaxiibadday maxaan ku dhaha sideese ugu sharaxaa arrinkan ma waxaan ku dhaha ninka dembiilaha ninka badbaadiyey waa aniga aabbe ayadase maxay iigu jawaabi doontaa nagada hadda waxay rabaan ha sheegaan aniga waxaas wax iga qusay habeeraatee ma jiraan ma sidaas gabadhayda halkayga si fiican u dhegaysa adiga waxaa ahayd gabar yar waxaan u baahneed mustaqbalkaaga oo keliya ayaan waxaasoo dhan aniga u suubiyey aniga waxaan u baahnahay gabadhayda inay horumar gaarto horumarka sidiisa bannaan lacag ayaa lagu suubiyaa anigana lacagtaas aan suubinaya hooyadaa ku kala tagna ogow lacag oo keliya ayaa rabta sax gabadhaas yartaa nolosheeda meeqaad ku qiimaysa aabbe meeqa ayaa ku qiimaysa gabadhaas gabadhayda xanaaqii kaa tan badin adiga ka war aniga booska aylan haddaan ku jiri lahaa meeqa lacag ayaa dhiibi lahayd si aad aniga ii soo badbaadiso besigadha intaan ka badan ma u dul qaadan karaan maanta ka hor hadal walbaad idhaahdo waan aamini jira aabbo laakiinse maanta wixii ka dambeeya hadal walbaad idhaahdo ma aamini doono meeqa maalmood ayay ku qaadan kartaa gabadhaada in ay ku ogaato inaad abukaata ii tahay ii tiri anna waa kuu tirinaa gabadhaada meeqa maalmood ayay ku qaadan kartaa in ay ku ogaato aniga inaad abukaata ii tahay taada kale shakiga ay ka qabtay dhimashada hooyadeed 9 maalmood xataa kuma qaadanayso ma waxaad iigu kallifaysaa arrinkan inaan cadaadis kugu saaro aniga waxaan ku haystay inaad tahay qof daacada laakiinse ficilkan waad iiga naxsataa aabbo balse maanta wixii ka dambeeya inaad igaadda iska daaya agaarkayga kama soo dhowaanaysa hal su'aal ayaan ku weydinaa hooyadaa iyo aabbaha haddii ay yimaadiin hooyadaa miyaan kugu wareejaa mise aabbaha maya arrinka hadda maahan waa arrin muhiim ahoo ka fikirid u baahan marka waa inaad ka fikirtaa gaalib waa inaadan gabadhaada siinin warkayga ma fahanti هلو قاتل ها زينب ninka gaalib lagu magacaabo qalad ayuu sameeyey vili ayuu la xiriiray haddana wuxuu rabaa gabadhiisa inuu ka soo wato lacagtana u geeyo تليفون يا دعاي mii maqlaysa adiga waxba ha ka walwali ninka hadda
anaa daba joogo warna kaaga keenayo okay waayahay soo hadal waan ku maqlaa gabadhaada adiga ayaan kugu wareejinaya ninkaas khaalib la yidhaaho inaan ku wareejiyo lagama yaabo sababtoo ah mar labaad ayuu i khayaanay mana doonaya aniga khayaanaas inaan ku dhaco jaanis ayaan siiyey jaaniskaasna asiga ayaa ka faa'iidaysan waaye hadda waxaan kaa rabaa gabadhaada inaad iga soo doonto maxaan sameeyaa waayahay tagsi ayaad soo raacaysaa kadibna aniga ayaa kuu sheegaya waxa aad samayn doonto waayahay boorsadan wixii ku jira ayaa isticmaalaysaa waxaagana inta ayaad ku ridaysaa micnahaaga waxaan ku dhahay maqlaysid hawaa dariskan qaado waa meeshaa gabadhaada ka heli lahayd maxaad u taagan tahay dharka maasiibtid hadalkayga maqashid waa ku maqlaa isdeji weli fiidiyowga miyay raadinaysaa maxay kaloo samayn lahaydee adigana maxaa samaysay aniga fideoga ayaan tiri waad nala soctaa qofka nafsadeenna khatarta ku ah waa cabdikariin oo keliya ninkaasna waa inaan tilaabo sharcigan ka qaadaa waxaan ka jeclaan lahaa inaad disho taleefonka waan dhigayaa hadda jariim halkee joogtaa halo hadda tagsiga ayaan soo raacay xaggeen aadaa kabtas ayaad imaanaysaa kadibna tareen ayaad soo raacaysaa markaad ka tegtidna waad soo wacaysaa zaynab wax boliis ilama socdaan baraabo gabarayga dhe waa gabar caqli badan maxaad ula jeedaa uu maqan taleefon ayaan ku hadlaya markaan taleefonka dhammaystana ninkan wuu tegey jiriim halkee u socotaa ila hadal ayaan ku dhaha halkee u socotaa dimiir kariim uu dhaawacay inaan ka haragna lagama yaabo yaa akhi jiriim ninkan wuu tegey wuxuu qaadan karana wuu qaatay maxaad u daba kacaysaa maxaad ka daba doonaysaa ilaa hadda maan fahmin jiriim dimiir gaarigaaga furiisiisii inaan raaca u baahanahay waxaan ku dhaha gaarigaaga furiisiisii inaan kaxaystaa rabaa mise tagsiga raacaa mahadsanid halo halo cabdikariim siduu yahay yaa tahay adiga meeral ayaa kula hadlaysa kariim siduu yahay lambarkayga xaggee ka soo heshay waxaasoo dhan intaad iska dhaafto waxaad ii sheegtaa cabdikariim xaaladdiis sidee tahay arrintaa hadda xiise maxay kuugu yeelatay waan xasuustaa kariim markii xabadda lagu dhufanayay adiga aadaad u qeylinaysa markaas maxaa u siin weysa adiga arrintaas ha isku mashquulin sababtoo haddii aan kuu sheegay xitaa ima fahmaysa keliya waxaan ku weydiinaya iiga jawaab siduu yahay cabdikariim xaaladdiisa iiga waran inaan wax kuu sheega lagama yaabo waad ii sheegaysaa inaan ogaadana waan ku qasbanahay adigana waan ogaa waxaad raadinayso macnaha adiga waan ogaa inaadan raadinayn dahabka lagaa xaday ee waxaad raadinaysaa fiidiyowga soo maaha fiidiyowgaas waan ku siinaya wax dhibaataa male balse marka hore waxaad ii sheegtaa cabdikariim siduu yahay aniga ma oga xaaladiisa cabdikariim sidoo kale meelo jirana ma ogi alloora fiidiyowga ma rabtida ila tahay waan rabaa okay waxaad iiga maataa sareybam
halkee u socotaa ii sheeg meesha aad u socoto gurigeenna iya oo ma sidaas baa gurigaad u socotaa warbaal ayaa tahay aniga ayaa ku wadaaya sababtoo ah adiga soo ma ogid in aan cabdikariin xabad ku dhufannay marka ma iska baxaysaa aniga waan ogahay meeshaasna waan joogay balse aan ku weydiiyey ma qiyaasi kartaa waxa dhici karo ujeedkaygana wax kale maahan keliya waxaan rabaa cabdikariim inuu nool yahay inuu dhintay inaan soo kala ogaado okaadi meel aad aadi kartid ma laha jaakadahan isii ii sii daa ayaan kudha jaakada sii daa yaaqi adigana doqonnimadan kaaga yaabo maxaa kaa qaldan sii daa kaala maskaxdaadoo keliya miyaad ka adeegane hadalkaagoo keliya miyaan dhegaysanaa anna